بسم الله الرحمن الرحيم قدونك قولها وكيلة دولة بنتلان مدنياشا وكيلة دولة بنتلان اسمدا علماء برشاد الرئيدكا صحافة عيدمدا أمنية صاحبة إذا مشارحين تا يدمان تدوينها نقل السعودة ورباهنتا وحنكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب أنا جو أبشر عمر جامع أبشر عمر هروسة أهنا مشرح أتاجن حلك مدحوينها دولة بنتلان شرف وين وحقيقة إن ما أنت هرتنا كوسا بندقة تاريخ نولات كيجا يقرشها كوه كامين دون بنتلان أو كوبان ما دام وقته عريرية هي مدن قدوم يا مدن يال وحندين سوق بني ترى كيجا waxaan ku dhashay magaalada Garowe sanadkii 1967 waxaan dugsiga Quraanka waxbarashada hoose iyo dhexe ku qaatay degmada Ayl ee gobolka Nugaal dugsiga sarena waxaan ku dhameystay magaalada Garowe waxaan aqoontayda jaamacadda oo ahayd dib u dhiska iyo horumarinta wadamada colaaduhu saameeyeen waan ka qaatay jaamacadda York ee UK waxaan ahay samafale ka shaqeynayay arrimaha bulshada iyo gargaarka muddo ku dhow 20 sano xilal sarena ka qabtay isla hay'adda ICRC ama lanqayrta caalamiga waxaan adeega bulsho ahaa waqti adag oo dalku ku jiray xasarado dagaalo abaaro nidaam la'aan dadkuna u baahnaa taageero dhan walba waxaan kaloo ahay ganacsade cashuur bixiye ah iyo nabad raadiye qayb weyn ka soo qaatay xalinta khilaafyada horumarinta iyo xasiloonida bulshada waxaan garanayaa xaaladaha dhabta ah ee dadka reer Puntland haysta iyo tabaha ku haboon ee wax looga qaban karo waxaan ahaa wasiirkii ugu dambeeyay ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya anigoo badego u ahaa dejinta mabaadi'da siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya intii aan xafiiska joogay wada hadallo badan oo dhinacyada diblomaasiyadda muhiimad weyn u lahaa dalka iyo ummadda Soomaaliyeedna garwadeen ka ahaa gaar ahaan kuwa laga dhaxlay oo dhalay natiijooyin dalka waxtar u noqday mudana gudoomiye mudanayaal waxaan u taagnahay inaan qabto xilka madaxtinimada dawladda Puntland anigoo hubaa inaan leeyahay aragti siyaasadeed faham bulsho iyo karti aan ku bedeli karo oo ku qotanta waayo aragnimo qoto dheer oo ku aadan sidii loo gaarsiin lahaa dadweynaha reer Puntland maamul hufan nabad midnimo kobco dhaqaale adeegyada bulshada iyo isla xisaabta haddaba mudanayaal haddii aad ii doorataan inaan dalka hogaamiyo waxaan ballan qaadayaa inaan isbedel muuqda iyo waxqabad la taaban karo ka qabto dhinacyada amniga siyaasadda cadaaladda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada mudanayaal amnigu waa tiirka koowaad ee dawladnimada iyo horumarka muhiimadda koowaad waxaan siin doonaa sida aan uga shaqayn lahaa Puntland xasiloon iyadoo aan u marayo hanaanka dadku ku aaminaan sharciga iyo dalka iyo kala damaynta ma dhici doonto in ciidamada Puntland loo adeegsado dano shakhsi ah ama kuwa siyaasadeed waxa ay qorshaysan inaan dib u habeyn weyn ku sameeyo laamaha amniga waxaan isku dhafi doonaa ciidamada qalabka sida ee u kala qaybsan habeeleedka iyo kooxaysiga siyaasadeed waxaan awoodda maamulka saarayaa sidii looga hortagi lahaa isku dhacyada beelaha dambiyada abaabulan waxaan dardar gelinayaa alle idankii dagaalka ka dhanka ah kooxaha argixisada ee dhibaatada xoogga ku haya shacabkan waxaan wax ka qaban doonaa burcadbadeedda iyo kalluumaysiga sharci darrada oo khatar badan ku haya nolosha kalluumaysatada dadka reer Puntland mudana gudoomiye mudanayaal waxqabadkayga siyaasadda oo kooban waxaa jira kala fogaansho u dhaxeeya bulshada reer Puntland iyo dawladnimada ama maamuladeena waxaana keenay maamul xumo iyo danaysi waxaan qorsheynayaa in dawladnimada loo soo dhaweeyo dadka iyadoo meesha laga saarayo danaysiga musuqmaasuqa iyo maamul xumada
waxaan soo celinayaa haybaddii maamulka iyo kalsoonidii shacabka waxaan xoogga saari doonaa siyaasad xasiloon kuna salaysan mabda'ayga tubsan iyo talo midaysan waxaan soo xuli doonaa xukuumad aqoon tayo iyo karti u leh hoggaanka maamulka dadkuna aamini karaan si bulshadu u hesho adeegyada dawladda waxaan xoogga saari doonaa kala madax bannaanida hay'adaha dawladda si loo helo isla xisaabtan dhab ah waxaan xoogga saarayaa inaan la dagaalamo musuqmaasuqa iyo waxqabad la'aanta aragtida muwaadiniinta waxay lafdhabar u tahay dhismaha dawlad wanaagga waxaan xoojinayaa alle idankii in si siman bulshadu siyaasadda uga wada qayb qaadato anigoo wax ka qabanaya matalaad la'aanta ku dhacday bulshada ee dhismaha golayaasha dawladda iyo go'aamada masiiriga ah si aan u hirgeliyo barnaamijka dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan waxaan unki doonaa heshiis siyaasadeed oo ay u dhan yihiin saamilayda iyo daneeyayaasha siyaasadda si loo heshiiyo si daahfuran tubta loo raacayo si loogu heshiiyo si daahfuran iyo tubta loo raacayo barnaamijka dawlad dhiska ku salaysan xisbiyada badan iyo awood-daadejinta heerarka kala duwan ee dawladnimada mudana guddoomiye mudanayaal arrimaha SCC Khaatumo oo muhiimadeeda leh difaaca iyo amniga deegaanada SCC Khaatumo waa muqadas aan marnaba gorgortan laga geli karin lana dayici karin waxaan muhiimad gaar ah siinayaa taageerada deegaanada SCC Khaatumo ee dhinacyada maamulka difaaca siyaasadda iyo dhaqaalaha waxaan kala shaqayn doonaa maamulka SCC Khaatumo fulinta adeegyada bulshada iyo dejinta istaraatiijiyada maamul iyo dhaqaale waxaan sii wadi doonaa taakulada iyo mushaharaadka ciidamada xuduudaha SCC Khaatumo waxaan ixtiraamayaa rabitaanka shacabka deegaanada SCC Khaatumo mudane guddoomiye mudanayaal xiriirka dawladda federaalka si loo helo aragti siyaasadeed oo xal waara u noqon karta khilaafka siyaasiga ah ee dalku horay uga socon la'yahay waxaan ku shaqayn doonaa talada iyo ilaalinta danaha Puntland gundhigna uga dhigi doonaa in shacabka reer Puntland ay helaan dhammaan xuquuqdii ay lahaayeen oo la xanibay muddooyinkii u dhameeyay Puntland waxay qaadan doontaa kaalinteeda hormuudnimo ee wada xaajoodka go'aamada masiiriga ah ee lagu jahaynayo siyaasadda qaranka mudane guddoomiye mudanayaal cadaaladdu waa udubdhaxaadka jiritaanka dawladnimo si bulshada reer Puntland u helaan kalsooni amni iyo mid siyaasadeedba waxaa laga maarmaan ah in adeegga laamaha cadaaladda ay noqdaan kuwa dadku u siman yihiin tayaysan la hufnaan kuna shaqeeya meel mariyana sharciga iyo xeerarka dalka haddaba waxaan dib u habayn iyo horumarin ku samayn doonaa laamaha cadaaladda waxaan kor u qaadayaa wada shaqaynta iyo kala madax bannaanida siyaasadda iyo garsoorka iyo inaan diyaarinno qorshaha dib u habaynta iyo dib u qaabaynta hannaanka garsoorka Puntland si loo tayeeyo adeeg bixinta garsoorka waxaan u ballan qaadayaa shacabka Puntland inay dhammaatay xilligii jeclaysiga iyo fulin la'aanta go'aanada iyo xukuumadda garsoorka waxaan si buuxda wada shaqayn uga dhex abuuri doonaa maxkamadaha booliska iyo xabsiyada waxaan hirgelin doonaa markii ugu horeysay alle idankii awoodda guddiga garsoorka ee isla xisaabtanka iyo korjoogtaynta iyadoo si daahfuran cabashada bulshada wax looga qaban doono alle idankii anigoo ka duulaya halkudhegayga tubsan iyo tala midaysan waxaan u ballan qaadayaa shacabka ganacsatada iyo maalgashatada in la heli doono garsoor lagu kalsoonaan karo la saadaalin karo awoodna u leh inay ka garnaqaan kiisaska muhiimka u ah horumarka iyo ganacsiga xorta ah ee saamaynta ku leh ganacsatada gudaha iyo kuwa caalamiga mudane guddoomiye mudanayaal bulshada reer Puntland waxaa naafeeyey maamul xumo dhaqaale xatooyo cashuurta shacabka saboolnimo shaqo la'aan dhalinyarada haysata iyo dakhliga qofka soo gala oo hooseeya waxaan ogsoonahay muhiimadda uu deegaankeenna u leeyahay juqraafi ahaan uu ku yaal waa goob isku xirta marinada ganacsiga caalamiga ah laakiin aan laga faa'iideysan waxaan abuurayaa hannaan shaqo abuur si aan u yarayno shaqo la'aanta waxaan xoojin doonaa
sharciyada laga maarmaanka u ah horumarinta maalgashiga iyo ganacsiga. waxaan diiradda saari doonaa horumarinta xirfadaha kobcinta dhaqanka iyo cilmi baarista si aan kor ugu qaadno hal abuurka iyo wax soo saarka qofka. waxaan sidoo kale xoogga saari doonaa sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka dhulka hoostiisa ku jira ee gaaska iyo shidaalka. waxaan abuuri doonaa qorshayaasha kor loogu qaadayo horumarinta adeegyada dekedaha iyo garoomada si loo helo maalgashi caalami ah. mudanayaal iyo marwooyin, dawladdeedu waxay xoogga saari doontaa in ay wax ka qabato dhibaatooyinka curyaamiya wax soo saarka oo ay ugu horeeyaan abaaraha iyo isbeddelka cimilada, iyadoo aan abuurayno qorshe rasmi ah oo ku wajahan xoolo dhaqatada, kalluumaysatada, beeralayda iyo maydiga. waxaan samayn doonaa alle idinkii aag dhaqaale xor ah, free zone, aag warshadeed oo looga faa'iidaysto maalgashiga iyo wax soo saarka gudaha. mudane guddoomiye, mudanayaal, dadka reer Puntland waxaa ku adag siday u heli lahaayeen adeegyada nolosha. waxaan ognahay in dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo korontadu ay yihiin dhibaato weyn oo haysata dadka. dawladdeedu waxay awoodda saari doontaa in la helo ugu yaraan sanadkiiba hal isbitaal, haddii Allah awoodda la yiraahdo, oo casri ah oo dabooli kara baahida caafimaad ee dadkeenna haysata, ayna uga maarmaan safarada dhaadheer iyo tacadiyada ay la kulmaan inay adeeg caafimaad u aadaan dalal shisheeye, iyadoo dhaqaalahoodu liito, isla mar ahaantaana ay muddo ku qaadato inay sameeyaan inay dhaqaalo u helaan safaradooda, in badanna ay dhibaato ka badantay iska daaweynayeen kala kulmaan safaradaas. dawladdeedu waxay awoodda saari doontaa dhinaca waxbarashada. carruurteennu tiro badan oo ka mid ahi ma aadaan iskuullo, gaar ahaan kuwa danyarta ah ama ka yimi qoysaska dakhligooda hooseeyo. waxaanu hirgelin doonaa waxbarasho asaasi ah oo lacag la'aan ah si danyarteenna loogu sahlo inay carruurtooda iskuul kastaan. raalli ahaada, 3 beej baa ii haray oo muhiima, laakiin maadaama waqtigu dhammaaday waa mahadsantihiin, waana idin salaamaya. asalaamu calaykum.